wasiirka wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada Marwo Shukri Xaaji Ismaaciil Baandare ayaa maanta tababar ku saabsan maamulka iyo ka faa'iideysiga geedka garanwaaga u soo xidhay mas'uuliyiin ka socday wasaaradaha iyo hay'adaha dawladaha hoose ee dalka madax ka socotay gobolada iyo sidoo kale qaar ka mid ah ardayda jaamacadaha dalka. tababarkani oo socday muddo 6 maalmood ah ayaa waxay ka soo qaybgalayaasha ay ka faa'iideysteen aqoon dheer oo ku saabsan sida looga faa'iideysan karo geedka garanwaaga iyo sidoo kale khasaaraha iyo faa'iidooyinka uu leeyahay geedkaasi iyo sidoo kale sidii bulshooyinka Soomaaliland loogu faa'iideyn lahaa geedkani iyo sida ugu haboon ee looga faa'iideysan karo. tababarkani ayaa waxaa maalgelisay mashruuca Biyoole Banka Adduunka iyo sidoo kale wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada. ugu horeyn kulankaasi waxaa ka hadashay Shukri Xaaji Ismaaciil Baandare wasiirka wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada waxa ayna faahfaahin dheer ka bixisay geedkani iyo sidoo kale sida ugu haboon ee looga faa'iideysan karo iyo tababarkani iyo waxyaabaha kala duwan ee laga filanayo. 6 casho ee maanta ay ku jirto ku falanqeynayay bal geedkan garanwaaga saynu garanaa geed aynu 6 sano aynu siniin garan weynay ilaa ingiriiski keenay halka xeebaha uu ku horeeyay ka dambeeyay dadkii kala dambeeyay ee iyaga qudhoodu soo qaxay bariga qaxoontigii loo keenay baad celinta la isiri bal waxa laga qabto bal geedka la garan waayay dhinacna naftii inoo keenay bal inaynu garanno marun oo inuu abtirino ayaydun halkan isugu timaadeen 6 casho wax badan baa soo bandhigteen aara fara badan bay isweydaarsateen qof waliba wuxuu ka fahamsanaa haday scientifically noqoto ama ha ahaato yani geedkan marka loo daraaseeyo de daraasad asal laga soo saaro ama qof isagu baranayo warba u hayn oo de la culoobay oo kula culoobay dhulkan uu qabsaday waxaanu halkan maanta aynu ku soo xiraynaa workshop-ka kaga shaqeynayseen ama course-ka aad dhiganayseen waa course isugu jiray waxbarasho iyo workshop waa 6 casho workshop maaha waa course dhan oo soconayo ABCD laga soo bilaabay training asaluha hadaba dhinaca kale waxa halkaasi ka hadlay mas'uuliyiin kala duwan oo ku hadlayay afka dawladaha hoose wasaaradaha dalka iyo hay'adaha dawladda waxa ayna ka warameen aqoon kororsigii ay ka faa'iideysteen tababarkaasi iyaga oo sidoo kale soo jeediyay talooyin ku aadan sida ugu haboon ee looga faa'iideysan karo geedka garanwaaga. waxaan idin kala mideysanahay maanta laga bilaabo annaguna bahalka in wax soo saar loo bedelo mar haddii xoolaheena ay ku baxsanayaan oo cilmi baarisaha kala duwan ee la sheegay ay la soo gudbay ay sheegeen faa'iidadiisa in cunto laga samaysan karo ama ha fududaato mid adag noqoto in xooluhu ku badbaadayaan in dhuxul laga samaysan karo in had laga samaysan karo in guriga laga samaysan karo inta mar haduu leeyahay annaguna mashaariicda waxaan ballan qaadaynaa annagoo teamkayga iyo madaxdeedna u jeedin doona in dadka ka samaysanaya production ama wax soo saar doonaya ka samaystaan waxaan kula talinayaa inaan soo jeedin doona oo ka gaarsiin doona shirarkayga ugu horeeya in dadka meelihii ay ka samaysan lahaayeen in loo fududeeyo iyo shuruucda xagga dawladda hoosaan ku xiran qofka wax soo saarka garanwaaga wax soo saar ka sameynaya in loo fududeeyo haddii ay degsiimooyinkiisii tahay iyo wixii kale ee lagala qayb qaadan karo marka waxaan halka waxa ka soo baxay inaanu horta wax scientific ah data scientific in Soomaaliland hay inuu baalkan yahay advantage-kiisa iyo disadvantage-kiisa wali lama hayo wasaaradda deegaan ahaan iyo Biyoole project ahaan waxaan insha Allah ka shaqeyn doonaa inaynu helno policy cad oo birsobiska inaynu uga faa'iideyno mashruuceena socda hadii la yiraahdo waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa mar kale iyo mar saddexaadba dhammaan teamkii ajinsiyadii wasaaradda deegaanka isuduwayaasha wasaaradda deegaanka Soomaaliland oo dhan baynu ka soconay marka Soomaaliland oo dhan baynu fariinta inaga laftakeena wacyigelin ku jirnay Soomaaliland baynu fariintan gaarsiin doonaa tala war la heliyaaba tala la hel in bal xog horta imka dadkoo dhani bulshada imka halkan isugu timid ay ka hayso in wasaaraddu ay qaadato hoggaanka la xiriira geedkan iyo hawlihiisa iyo in la joogteeyo wada shaqeynta dadka ku hawlan geedkan iyo shaqadiisa waxyaabaha kale ee noo muuqatay waxa kamid ah maadaama geedkan yahay geed farabaas ku haya dhulkii manaafacaadkiisii oo beerihii oo kale dadka aad uga qaaday
meelihii biyaha dadku ka helayeen biyihii ka weeraray oo biyo yaraani soo food saartay deegaanada qaarkood in bal arrin qaran laga dhigo laga arrinsado faa'iidadiisana sidii looga faa'iideysan lahaa khasaarihiisana looga hortagi lahaa waxaan ku xoojinaynaa oo soo jeedinaynaa maadaama waxaan yahay invasive alien specieska oo dhan markaan isku darnay ama dhirtan qalaad ee muddooyinka sanadada ugu dambeeyay nagu soo badanaysa oo ka mid yahay garanwaaga iyo maxaa ahayd kalidi noolaha iyo waxyaabaha la midka ah in iyadana loo sameeyo meel forum ama maxaa ahayd steering committee in la abuuro sanadadii mar kulma guideline-ka iyo frame siyaasadaha dejisana in la fuliyo oo lagu dhaqmo